waxaan aad uga baqaynay inuu ku barbariiqdo oo asaga oo dhaawacyo badan qaba uu xilligan soo gaaro wayna dhici kartaa in xataa talagalku wax mararka qaarkood siyaabahaas uu ahaa laakiin tusbaxaayar ee uu haysta iyo ducooyinku waxay keeneen in uu ilaahay ka samata bixiyo oo asagoo hero uu ka baxo galabta xafiiska marka waxaan aaminsanahay in uu mukhlis ahaa oo ikhlaas iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aad uga wada cabsanayno kulligeen asaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan inta ka shaqaynaysay waanu mahadcelinayna waxaad dalka ka soo gudbiseen marxalad aad u adag oo xusuus runtii ciddii ka naxaysa dalkan xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeenu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u gashay Soomaaliya waxaa la yiraahdaa dadka Soomaalidu ma xusuus badna markuu wuxuu taa u dhamaado dadku waa isku wada midoon kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyay 2 bilood kadib isku mid bay noqonayaan adduunkan sidaas kama jirto qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaano leeyahay qofku iyo record waxaan rajaynayaa mudan ra'iisul wasaare in markan Soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo la xusuusnaan doono waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan siyaabo kala duwan inaan dadka ku soo hor istaajino siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno marka aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa mahadaas runtii waxaan u celinayaa ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka haddaan kooyay sheekadu maaha waxaan waa community iyo waxyaabo la soo kor saaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo ninba maalin keenayo kuwa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn ay isku dhow la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawladda ka jirin waxbay ku bilaabeen meel bay soo gaarsiiyeen waana mahadcelinaynaa kuwa ka sii horeeyo Talyaani ka bedelayba oo Soomaali ka dhigay waa mahadcelinaynaa qof kasta oo waddankan soo xukumay especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horeeyay kii qaada ku soo daray iyo kii kursi ku soo daray iyo kii xaashi ku soo daray intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool guul cibaado iyo caafimaad baan rajaynaa shaqaalaha oo PS ku ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda iyagana waan mahadcelinayaa golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyay waan mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyayna waan mahadcelinayaa wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta uu mahadsan yahay wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyay oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu sameeyeen waan uga mahadcelinaynaa waxna waan ku sii dhisaynaa halkaasaan ka sii bilaabaynaa waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo wasiirku ka mid yahay hadduu fiican yahay waxaas fiican buu ka mid yahay haddii uu kursi jaban yahayna kursiga waa la bedelaya aad iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahadcelinayaa intaas waa iska kaftan shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee ana laygu soo wareejiyay ayagana laygu soo wareejiyay waxaan ka rajaynayaa
shaqo wanaagsan saaxiibtinimo ayagana inay soo dhaweeyaan anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta